السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا مانتا وحن بقابل حدنا مر لبعض أوفيس كيجي أيام شجاع وإن كان رخيا وحكويا أوفيس كيجي كويا تاني مقالة من جاتينو كبك وحن ربي مانتا إن نلقى بتمو نحوها إنير أو محنكر هذا أمبلا أوران كرو غوس وأيو حياة بنبان دور مرات أن كحلي تيفية قاركود وإنجليزي فرنسيسكا إنجليزي الصومالية يدا على هوا مركا دور شربان وتحني لكن هذا وحن كان يرجو ما يعدل دونا غوس وغوس كود بديس مركا سكراب بيجو تحني نقطة مركا إني كاسكو حلو دونا بس هذا لكن أنا جوان يرو كابل وأنا قلت لك ليلة ما هو بدنا شمر إن أنا لقيت متطور على هاي السؤال يمكن هيم كا يوديان iyo kuwa isweydiinaya iyo am qaarkood bay isweydiiyaan ay ka mid tahay maxaan ku radaa muhiimadda nolosha iyo shakhsiyadda muhiimadda nolosha haddaan muslimiin nahay walaalahay baan la hadlayaa muslimiina maanta noloshu ilaahay muxuu noo abuuray waxa weeyaan waa su'aal la isweydiiyo oo falsafada faransiiskana lagu yidhahdo question existentielle maxaa noo abuuray culimadu waxay yidhaahdaan marka diinta la eego ilaahay wuxuu noo abuuray inaan caabudno waa run way jirtaa oo waxaan noo abuuray in ilaahay aan caabudno laakiinse maxaan maanta adduunkan aan u joognaa missionka adduunkan aan u joognaa waa maxay haddii laga eego dhinaca islaama waxa weeye halkan waxaan u joognaa waa nolol ku meel gaara waa qof safar ah oo sahaydiisii sii qaadanaya halkuu safraya meeshii uu rabay ama meeshii loogu talagalay inuu tago uu ilaahay ugu talagalay inuu tago meesha wuxuu la gaarayay ayuu haddaba maxaan ku rahdaa safarkaasi uu qaadanaya caadi marka la dhoofiyo waxaa la qaataa raashin biyo aduu la saxbaan qaataa marka noloshani waxa weeyaan waa safar meel lagu safray weeyaan meesha lagu socdaan waa meeshii ilaahay noogu talagalay oo ah meeshii kala dambaysa marka ilaahay markuu nebi aadan u abuuray wuxuu ku abuuray shucuur awoodna wuu siiyey laba wax markaas nebi aadan ilaahay uga dhigay ibtilo labada wax ibtilo uga dhigay waxa weeyaan shaydaankii sidaan ogsoonahay markii la yidhi u sujuud nebi aadan awooddii la siiyeyna uu arkay iyo siduu ilaahay uga fadalay wax walba makhluuqnimo ayaa ku dhacday shaydaankii marka waa ka diiday sidaan ognahay haddaba markaa ilaahay wuxuu ibtilo uga dhigay bini-aadanka shaydaan talabaadda kale wuxuu ibtilo uga dhigay shucuurtiisa labada waxa bini-aadanka seejiya amba ka saara dariiqii wanaagsanaaye safarka aan rajeynayno inaan safarkaasi uu noo noqdo safar salaame oon ku dambeenno meeshuu ilaahay noogu talagalay oo ahayd ilaahay garabkiisa inaan joogno maalinta yowma qiyaamaha aan noqono kuwa ilaahay jeclaa u soo dhaweystay taana waxaa lagu gaarayaa camal wanaagsan okay haddaba waxaan rabaa dadku wallahi aan la shargalayo dhowr mid waxyaabo fara badan oo dhowr meelood aan kala hadlay iyo waxyaabo badan oo muxuu ahaa muhiima laakiin marka la isku wada keeno intuu meel bay isku wada imanayaan marka waxaan rabay shamridna la qaybtamo qofka walaalkeen markuu cajridan dhegeysto aan soo duubay inay u noqoto fikir uu isweydiiyo noloshiis maxay tahay وحسابتهم maxaan soo sameeyay lama imiga oo maxaan ku raadaan ku farxaya oo la taaban karo ya aan oran karaa maalintii yawm qiyaamah ilaahay wuxuu oran kaas amalkii wanaagsanaa oo geedaad samaysay rajeerin inuu amal laga aqbalay in qofku saas ku diiso xisaab wuxuu wanaag u sameeyay una isku xisaabtano wixii dhibaato qofku u sameeyay amba isagu isku sameeyay amba ilaahay kale ku sameeyay okay marka taarku qofku markuu sidaas ku xisaabtiyo dhibaatada sameeyay waxa ku dhacdo waxa la shucuur ku dhacda la yiraahdo guiltiness amba dambiilo dareema taasina waxa weeyaan waa dhibaatadii baraha ka dadkii wallahi markay xisaabiyaan ay ogaadaan wixii qalad ay sameeyeen amba ogyihiin ba waxay sameeyeen qalad walba dhaca amba bil aadam ku sameeyo ilaahay wuxuu noogu balan qaaday inuu yahay qofur raxiim inuu yahay maxaan ku rahdaa inuu noo naxariisanayo marka wixii qalad qofku sameeyay ayuuna isku qoomay hadduu maanta qaladkiisii ogaaday uu ka toobad keenay
ilaahay sir ahaan uu weydiistay ilaahayow ii dembi dhaaf waa inuu qofku maxaan ku dhahay si niyadsan u aaminsanadaa inuu ilaahay yahay inuu ilaahay u dhaafay غفور رحيم yahay waana u dembi dhaafay taasi waxay